wacan u wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta oo aad naga daawanaysaan iyo si walba oo muuqaalkani idinku soo gaarayo muuqaalkan waxaynu kaga hadlaynaa xaaladii ugu dambeysay ee dagaalka u dhaxeeya jabhadda TPLF ee gobolka Tigray iyo dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya warar cusub ayaa ka soo baxay waxay sheegeen in ciidamada federaalku ay adeegsadeen ciidamo lug ah oo ciidanka militarigu ay u adeegsadeen bay yiraahdeen hubka noocyadiisa kala duwan iyagoo oo sheegay in cir iyo dhulba laga weeraray waxay intaasi ku dareen in ciidamo kala duwan oo maleeshiyad ahi ay ka qayb qaateen dagaalka sidoo kale waxay sheegeen in jabhadda RSF ee dalka Suudaan ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan ay ka garab dagaalameysay ciidamada militariga Itoobiya Abdixamiid khadka ayaan hay saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si share garee muuqaalkan oo la wadaag saaxiibadaada mahadsanid maamulka jabhadda TPLF ee gobolka Tigray ayaa war saxaafadeed cusub soo saaray waxay ka hadleen xaaladda dagaalka ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo TPLF waxay sheegeen oo ay eedeymo korka uga tooreen dawladda federaalka ah ee Itoobiya jabhaddu waxa ay kaga hadashay war saxaafadeedkan xaaladda amni iyo waliba dagaalada ka socda galbeedka Tigray iyagoo oo dawladda federaalka ku eedeeyay in lagu qaaday dagaal military oo ka dhan ah TPLF sida lagu sheegay bayaankan dagaalku waxa uu bilowday baa la yiri aroornimadii 25 ee bishani Hamle 2018 waa tirsi taariikhadka dalka Itoobiya ama 1 August ee 2026 waxaana la sheegay in uu ka dhacay deegaanka Shareerena ee galbeedka Tigray oo ay in badan dagaalo kala duwan iyo isku hor imaadyo u dhaxeeya labada dhinac ay ku dhaxmarayeen bilihii la soo dhaafay maamulka jabhadda Tigray ee TPLF waxay sheegeen in ciidamada federaalku ay adeegsadeen ciidamo lug ah oo dawladda federaalka ah ee Itoobiya ama ciidanka militarigu ay u adeegsadeen bay yiraahdeen hubka noocyadiisa kala duwan iyagoo oo sheegay in cir iyo dhulba laga weeraray waxay intaasi ku dareen in ciidamo kala duwan oo maleeshiyad ahi ay ka qayb qaateen dagaalka sidoo kale waxay sheegeen in jabhadda RSF ee dalka Suudaan ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan ay ka garab dagaalameysay ciidamada militariga Itoobiya isla markaasina ay qayb ka ahaayeen maleeshiyadyo kale oo kala duwan maamulka Tigray waxay sheegeen in ciidamada Tigray ay iska caabiyeen weerarada kadib dagaalka oo socday ee laga bilaabo waaberigii ilaa iyo fiidkii isla markaana ay fashiliyeen ujeedooyin military oo weerarka ah waa sida lagu sheegay bayaanka ciidamada Tigray iyaguna ku tilmaamay in ay muujiyeen geesinimo adkaysiga furnimo isla markaasina ay qoreen bog cusub oo taariikhi ah sida ay ku warantay warbaahinta ee taageersan afka TPLF waxay sheegtay in ciidamadeedu ay mudan yihiin sharaf iyo waliba geesinimo qaran ma doonaysaa adeeg la hubo oo la isku halayn karo dhammaanba isku beddelka lacagaha qalaad dal iyo dibadba ka sarrifo oo ku xidhnow Cabdiraxiin Digital Money Exchange wixii faahfaahin dheer kala xidhiidh lambarada shaashada kugu qoran dhanka kale bayaankan ayaa cadeynaya in ciidamada militariga Itoobiya iyo xulafadoodu la gaarsiiyay jab isla markaasina ay sheegayaan TPLF in xarumaha caafimaadka ee galbeedka Tigray Gondar iyo waliba deegaanada ku dhow ay buux dhaafiyeen askar dhaawac ah sidoo kale war saxaafadeedku waxa uu sheegayaa in tiro kale oo dhaawacyo ah diyaarado loogu qaaday qaybaha kala duwan ee gobolada dalka si loo qariyo baa la yiri fashilka iyo jabka iyo dhibaatada ee ka dhacday goobtaasi iyagoo oo TPLF sheeganaya guulo iyo in ay waxyeeleeyeen militariga federaalka Itoobiya maamulka jabhadda Tigray waxay intaasi ku dartay in dawladda federaalka ah ee Itoobiya ay wali ka go'an tahay in ay sii wado hawlgalkeeda military isla markaasina ay suuragal tahay in ay weeraro kale qaado jihooyin kala duwan ay ka gasho dagaalka bayaankan ayaa ku adkaystay in shacabka Tigray ay leeyihiin xuquuq sharci iyo mid dabiici ah oo ay ku difaacanayaan jiritaankooda ammaankooda madax banaanidooda iyo waliba xaqa ay u leeyihiin baa lagu yiri in ay aayahooda ka tashadaan maamulka TPLF ayaa ugu dambeyn ku cadeeyay bayaankan in bulshada gobolka Tigray ay ka bixi doonaan carqabadahan isla markaasina ay muujiyeen adkaysi iyo waliba dhabar adeeg badan isla markaasina ay xaq u leeyihiin in ay isdifaacaan iyagoo hambalyo u diray isla markaasina bogaadiyay ciidamada TPLF ee dagaalka kula jira dawladda dhexe ee federaalka ah haddaba dhinaca dawladda federaalka ah ee Itoobiya iyo sidoo kale jabhadda RSF ee Suudaan kamaysan jawaabin wax jawaab ahna kamaysan bixin eedeymahan loo jeediyay TPLF waxa ay dusha ka saartay
eedeymahaasi in ay dagaal hor leh kusoo qaadeen dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia iyo maleeshiyaadyo isgarabsanaya iyo sidoo kale jabhadda RSF ee uu hogaaminayo Maxamed Xamdaan ee dalka Suudaan. War-saxaafadeedkani haddaba wuxuu ku salaysan yahay bayaan rasmi ah oo ay soo saartay jabhadda TPLF ee gobolka Tigray. eedeymaha iyo weliba sheegashooyinka ku jira bayaankani weli si madax bannaan looma xaqiijin, mana jirto jawaab rasmi ah oo ilaa iyo hadda soo baxday oo ka soo baxday dhinacyada dowladda federaalka ah ee Ethiopia iyo weliba dhinacyada kale ee lagu magacaabay bayaankan. Cabdixamiid Khadka ayaan ahay saaxiibayaal, fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, subscribe saar channelkan, soo follow gare, like saar muuqaalkan, sii share gare oo la wadaag saaxiibadaada.